ومال المورنكيو ما تكني هاري ومال نيلا ما شيء المال شيء المال dhammaadkii dagaaladii lagula jiray keligii taliyihii iyo taliskii macangaga ahaa ee siyaad barre 1991 ay ahayd markii lagu xoreeyey dhammaanba dalka oo dhan iyadoo lala soo galay dagaal adkaa oo socday in ka badan 10 sano dubuxoreyntii kadib waxaa gacanta lagu dhigay dal laga burburiyey dhammaan kaabayaashii nololeed oo dhan dawo ma jirin biyo nadiif ahina ma jirin iskuulna ma dhisnayn wax raad nololeed oo muuqday haba yaraatay ma jirin balse dadweynuhu waxay ku faraxsanaayeen iyagoon waxba hayn inay jebiyeen taliskii rajiimka ahaa ee u geysan jiray xasuuq iyo tacadiyada kala duwan dibna ula soo noqdeen xornimadoodii 1960kii ay heleen runaantii ma sahlanayn duruufihii adkaa ay soo mareen bulshadu wakhtiyadaas lagu jiray halgankii hubaysnaa ee lagu xoreeyey dalka haddii bulsha midoodu kuna heshiiso siday himiladooda u rumayn lahaayeen waxaa tusaale weyn u ah dib u heshiisiintii beelaha iyo ku dhawaaqistii gooniisutaagga jamhuuriyadda somalilan ee ku qabsoomay magaalo madaxda gobolka togdheer ee burco waxaan filimkan ku eegi doonaa sidii loo nabdeeyey beelaha go'aankii la soo noqoshada madax bannaanida somalilan iyo waayihii shirka burco iyo ugu dambayntii duruufihii adkaa iyo dareenkii bulshada ee 1991kii kadib markii SNM ay dib u xoraysay dalka waxaa markiiba saraakiishii iyo odayaashii dhaqanku ku dadaaleen in la abaabulo shirweyne qaran oo lagu heshiisiiyo beelaha wadadega dalka isla markaana la samaysto maamul iyo dowlad lana soo celiyo kala dambayntii dowladnimo waatii dalku u burburay ee u dhacay nidaamkii siyaad barre ee khaas ahaan dadkii gobollada waqooyiga la oran jiray deganaayay dulmiga iyo dhibaatada badan ay ka sheeganayeen waa kii burburay xarakadii SNM-na waa tii soo gashay dalka dhammaantii qabatay dabadeed waxaa loo baahday nidaam in la sameeyo oo la dejiyo si ummadii hoggaan loogu sameeyo berbera ayaa hortaan lagu qabtay shir yaroo kooban lagu qabtay intii aan la isugu iman shirkii burco waxaa jiray shirar ka horreeya oo ka dhacay magaalada berbera shirkaasoo ujeeddadiisu ahayd gogol xaadhkii nabadaynta beelaha dhexdooda waxaana loo ballamay shirkii burco in lagu gunaanado dadaalada nabadaynta laguna dhisto maamul xalliiban oo cid walba ka muuqato markii ay dawladdii meesha ka baxday oo ay SNM ku guulaysatay inay maamusho gobolladii waqooyiga waxaa la isugu yeedhay markii ugu horreysayba berbera baa la isugu yimi berbera markaa nabaddii halkaa aasaaska loogu dhigay loona ballamay in may la isugu yimaado shirka burco 1991kii ayaa shirkii burco la gudagalay iyadoo ay ku dhammaayeen dhammaan beelaha wadadega somalilan wuxuu ku bilaabmay jawi deggan bulshaduna waxay aad ugu dhegtaagayeen maxsuulka ka soo bixi doona shirka marka aad burco waa la isugu yimi ufuudii oo dhan way isugu timi bari waxa ka yimi laba garaad oo ugu waaweynaan dhulbahantaha markaa beesha dhulbahantay oo garaad cabdiqani iyo garaad Saleemaan iyo ufuuday wataan burca la isugu yimi shirkii baa la galay markaa shirkii waxa gudoominayay Xasan Ciise Jaamac baa gudoominayay
adigu shirkii beelihii baa loo saaray gaar oo la yidhi isu taga soo wada hadla wax ku soo heshiiyey inaanu bari iyo galbeedba dadkii reer Soomaaliland uga yeedhno odayaashii ku casuubno in aanu halkaa ku soo gunaanadno colaadii soconaysay 10 sanadood ee waddanku habsatay aanu ku soo gunaanadno shirka Burco go'aamadii ka soo baxay ee aanu halkaa ku wada qaran wuxuu shir qaran buu ahaa SNM baa qaban qaabisay wala socotaayo taariikhda clipska iyo wixii fiireeyay waad aragto ana gudoominayay shirka Burco waxa weeyaan waxa ay Soomaaliland dheer tahay Soomaalida inta kale taashaka kuma jiro waa arin taariikhi ah weeyaan waxay dheer tahay Soomaaliland Soomaalida kale weeyaan waxaanad ku garanaysaa inay sidaa tahay go'aamadii ka soo baxay sidaa diradeed baa lagu heshiiyey Burco ayaa lagu kulmay waxa Burco lagu heshiiyey in dawladda halka lagu aasaaso waxa la soo jeediyo dad badan ku hor u badnaayeen in la yiraahdo waan goosanay la yiraahdo loo badnaa laakiin gudidayadii boorma ka tagtay ayaa tiri ereyga aynu bedelo goosashada waxaynu ku bedelaynaa dal qaran baynu ahayn 60kii walaalahay koonfur waan ku beernay waxaan la soo noqonay xornimadeennii baan la soo noqonay aynu u bedelo oo loo wada reeyay ereygii sidii baan lagu heshiiyey in madax banaanidii Soomaaliland la soo celiyo Soomaaliland tii gobonimada ka qaadatay Ingiriiska ay xamar ka soo go'do oo ay sidii awalba ahaan jirtay wadan madax banaan oo goonidiisa u taagan oo cagihiisa ku jooga ay u noqoto Soomaal kale waa ereygan lagu yiraahdo Afghanistan in la soo celiyo sovereignty Soomaaliland la soo celiyo madax banaanidii Soomaaliland lala soo noqdo ee xamar la geeyay lala soo noqdo taasina qodobka labaad bay ahayd oo aynu jamhuuriyad iskeedu taagan aynu samaysano sidii awal babarkii Ingiriiska aynu goonida ugu ahayn Soomaalida inta kale waxa la goostay 2 sanadood xarakada SNM madaxdeedii oo kolka Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Xasan Ciise jaamac ahaa inay 2 sanadood qiyaadada hayaan oo talada iyagu hayaan gabagabadii shirka waxa ergadii shirgudoonkii shirku isku afkarteen oo la isku raacay dhowr qodob oo muhiim ah waxa ugu mudnaa qodobkii la soo noqoshada madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu dhawaaqay 18 May 1991 wuxuu ahaa dareen farxad aan xad lahayn farxad aan lahayn waayo aniga oo kale iyo raggii aan wada soconay 10 sanadood oo rafaada waxaanu keento ku jiray Soomaad kale dhalinyarada ku oran jiray kaadidaan soo cabay Soomaad kale duruuf adag baan soo maray oo intii ilaahay aan jirto lagu gashay oo imtixaan ah oo rafaada marka ilaahay baan ugu xamdi naqanay wixii naga dhamaadeen hawshii naga dhamaatay waanu nafis bay ahayd farxad bay ahayd xaaji aadan axmed diiriyo oo ku magac dheer aadan baradho wuxuu ahaa mas'uulkii maalinta akhriyay heshiiskii beelaa kuna dhawaaqay la soo noqoshadii madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland xaaji aadan waxaan xusuusiyey dareenkii bulshada ee 19 markii uu ku dhawaaqayay qodobadii lagu heshiiyey dareenka dadka horta shucuurta dadku wax la qiyaas kara ma ahayn wuxuuna misaal kaga soo qaadayaa anigeygani markaan misaal iska soo qaado maalintii aan u hadlayay maanta ma hadli karo waxay shucuurta markaan anigeygu jirtay iyo tamaanta joogtada oo kala laba يعني waxa weey waan qeyraal ayaa dadku wada qeyraysnaa aadna waa loo faraxsanaa waxa lagu faraxsanaa waxay ahayd go'aanimadii deegaanka luntay 60kii oo dib badan loo soo maray oo halgan badan la soo galay oo loo soo dhintay oo loo soo burburay loo soo baabaay oo dalkeenu u rogmaday oo wixii boqolaalka sano aynu soo dhisaynay baabeen oo halyeeyeen u dhinteen oo magaalooyinkeenu u burbureen oo maxaan ku dhahayn waxa soo dhiba waxaan dil arab lagu koobi karno dhiba loo soo maray ayay ilaahay nagu guuleeyeen maanta helay oo hananay marka taas baa lagu faraxsanaa farxadaas lagu jiray shucuurta dadku marka wax la qiyaas karo ma yahayn haddaad eegto maanta maalintii dadka sawirada haddaad eegto shirka fadhiyay
dad wada basiiraysan bay dahay xagga muuqaalka. xaaji aadan waxa uu nooga sheekeeyey dareenkii farxadeed ee bulshada 1991kii markii lagu dhawaaqay go'aamadii shirka, balse isagoo sii watay hadalka ayaa murqura waxa isbedelay shucuurtiisii isagoo isbarbar dhigay qabyaaladda baahsan ee maanta jirta iyo 1991kii midnimada bulshadu ay lahayd iyagoo saboola. haddana waxaa qiimo weyn ugu fadhiyey dowladnimada ay hanteen iyo xasilinta nabadgelyada dalka oo dhan. المال روح كل حوي حصوصته بنقصه وحلا سو مري يمانته يمان سائر وقول الليل ابنه shukri sugulle waxay ka mid ahayd haweenkii ka qayb galay shirkii burco. waxay ka mid ahayd xubnihii haweenka ergada ahaa ee shirka burco. waxaan ugu tegey magaalada burco oo ay ku nooshay. waxay igu oggolaatay inaan waraysi kula yeesho goobtii 1991kii shirku ka socday. waanu gabowno cagahan tabcaan kan ahay ma naga fuuli karna halkii abbay u wallahi ma dhaanto walaana ayaga halkan is dagax yar baan dhigan doonaa waxay u suurta gashay horta wixii ilaahay ku fududeeyay adiguna aad ku tala gashaa de way qabsoomayaan ilaahay qadarkiisa ku qabsoontay waxay ku lagu qabtay wixii aynu haysanay ee aynu la soo galay ee aynu maxaan ku dhahday waxna inaga soo horeyn waxna laynagu ma caawin oo laynama siin dadkii meesha ka yimee soo galay waxay siteenna ma jirin ilaahay qadarkiisa ku fududaatay lagu fadhiistay maskax midaysan iyo qalbi niyad wanaagsan oo saafiya ayay dadku la yimaadeen sidaasay ku suurta gasho lagu fadhiistay 2 bilood iyo dhowr iyo 10 cishana waa loo fadhiyay cid ina caawinaysa iyo meel wax laynaga siinayna ma jirin jeebabka dadkii wixii ku jiray uun baadee maxaan ku dhahday lagu shirka lagu galay oo lagu fadhiistay waxaan ka xasuustaa dadku meel uun bay ahaayeen 2 meelood ma jirin wax isu dhow ma dadku waxay ahaayeen dad midaysan qalbiga ka midaysan maskaxda ka midaysan wax ku midaysan isku mid ah maxaan ku dhahdaayay wax kaliya ah maantana de waxay taagan tahay qofna loo sheegi maayo waynu aragnaa qof waliba halku taagan yahay buu ku ooyay wax kaliya baa la doonayay ummaduna mid kaliya bay ahayd maskaxduna meel kaliya bay ahayd wax aan la isu keeni karin oo isu dhaweyn oo la isu barbar dhigi karin way aad iyo aad u kala fog muuse nuur wuxuu ka mid ahaa mujaahidiinta SNM dib u xoreyntii kadib wuxuu ahaa mas-uulkii amniga iyo ilaalada u qaabilsanaa goobtii uu shirkii burco ka socday. waxaan ahaa halgabayaashii dee la dagaalamayay rajuumkii markaa uu dadku dhibsaday
kuna guulaystay maanta nasiibkiisu ku simay inuu nool yahay maalintaana waxaan saarnaa gaadiidkii ilaalinayay goobta shirka lagu hayo ee lagaga dhawaaqayo dawladda Soomaaliland anuu nin sarkaalana waan ahaa markaa dareenkayguna waxa raggii waddanka ku dagaalamayna waan ahaa raggii jeclaa inay qabsadaan dhulkooda oo mar uun cagaa ay dhigaanna waan ahaa in xornimo ku dhigaan iyo nololba nolosheedii markaan ku soo gaadhay galabtii waxaan ahaa raggii gaadiidka saarnaa markii shirka halkaa lagu qabanayay gaadhi baan saarnaa qori saareen waan meelbisgareynay oo aan lahaa farxadda dabeedna rasaasta u bilaabay gaadhigaas markii lagu dhawaaqay oo dan ka qaado wuxuu ahaa hubbigaygu iyo jacaylkayga iyo niyadeyda iyo kalsoonidayduba ku dhawaaqidaasaan raacsana marka anigu waxaan ahay hooyooyinkii waddanka soo galay aad iyo aad baa maalintii aniga muruga ii haysay markii calanka Soomaaliland la taagay beelaha Soomaaliland oo dhan way isugu yimaadeen yacnigii waxay isugu yimi ilaa daraf irgooyin aad u fara badan baa yimi magaaladuna waxay ahayd magaalo aan dhisnayn oo maxay tahay iska burbur badan ka muuqdo oo dhibaatooyin badan ka jiro laakiin anagu waxaan u haynay magaaladayada ahniyad aad u fara badan dad aad u faraxsan baan nahay lama koobi karo farxaddii dadweynaha wakhtigaas goobjoogga ka ahaa ku dhawaaqistii iyo dhismihii dowladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland balse waayaha maanta taagan ee ku gadaaman dalka waxaad moodaa in farqi weyn u dhaxeeyo marka loo eego 1990kii waxaa si xoogaysanaya qabyaaladda colaadaha iyo in la ilaaway dhibaatooyinkii kala duwanaa ee soo maray bulshada Soomaaliland dad wax isku ogol dadku waaga ahaa oo nin walba ninka kale walaalkiya أو نولش اللي أقوليه أما منصب كون اللي أقوليه أما مجع اللي أقوليه ما أنت نروح صوب حضرتك تذكي لبضي المعذير كهاي يسويكتي أنا وحبي يسوي أقولين ولا ده حشون يقف إنه يلعذر غير هذا الضعن النهاية إنه يلا ولا حشوني إنه قف جرائد وحقوق إنه قرار بحيه ولا حشوني إنه إذا علاه دبد الله اللي ولا حشوني مجلس قراء قفكم انتو سميسو إن dadku yiraahdaan hadaan reer hebel nahay anagu waxay waxaan doonayna in la yiraahdo waa laga xishooniyay waxay qabyaaladu ku ekayd nidaamka magbixinta iyo dhaawacyada lagu jaraxaadka la bixinayo iyo kaalmada iyo aaska ayay ku koobnay waxa muuqda beriga 1991kii markii SNM loo dhiibay ay dagaaladu dhaceen ee la kala daatay waxa kala daadiyay loolan SNM dhexdiisa hadeer waxa muuqda ififaale loolan kale oo noocyo ba muuqda marka hadii xaqiiqada la sheego waxa weeye shirki boorame markii laga yimi maamulkii la soo doortay loolankii oo kala muuqda inay soo rabaan inay soo celiyaan beelaha reer Sheekh Isxaaq kaasina dani ugu ma jirto dadka ugu ma jirto dalkana dani ugu ma jirto maanta nimca la qabaa dadkii baa wax bartay dhaqaalihii baa koray beriga nabadda laga shaqeynayay beelaha dadaalayay لكن مامل كبي عشور ما قاعدين الدولة مامل كبي ما تشرت مامل وحول بينه كبي إنه هاي سنة iyadoo aynu 27 sano ku dadaalnay dhismaha qaranka ee Soomaaliland waxayna la gudboon in lagu dadaalo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha maanta jira ee koow ka yahay qabyaaladda sii xoogaysanaysa daminta colaadaha taagan lana soo celiyo midnimada bulshada hadafkeennuna ahaado adkaynta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu tirtiray taamil qaaday nacab halkankii sataxnaa injirihii difiqlaha cadawgii lagu tirtiray taamil qaaday nacab allow noo tiirise u taagnay calankayaga rabu tabantabiyo adigu noo taakule allow noo tiirise u taagnay calankayaga rabu tabantabiyo adigu